عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. وأنا هذه وفرح سنة هنا ما تسوني ما إنه عيد الأضحى. waxaan ilaahay uga rajeynayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaanba inay ku ciidaan ciid wanaagsan, inay ku ciidaan amni, inay ku ciidaan wadajir iyo midnimo ayaan rajeynayaa. waxaan sidoo kale rabaa inaan bogaadiyo ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanba ilaalinaya sugaya nabadgelyada ka sugaya cadow guud iyo mid dabadeed labadaba. waan bogaadinayaa iyaga iyo reerahoodana waan hambalyeynaya. ilaahay waxaan ka rajeynayaa in ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo amni insha Allah. waxaan sidoo kale rabaa halkaan inaan soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare walaalkeen Mawlid oo nagala soo qayb galay munaasabadda ciidda martina noo ahaa baryahan. waxaa laga soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada dadkiina ku soo dhawaada. waxaa aad iyo aad maanta looga hadlay amni. waa muhiim aniguna isagaan rabaa xiriir inaan taabto. Puntland waa amni inkastoo aad moodo in baryahan dambe cadow iskaashaday oo ka imaanayay dariskeena iyo shabaab iyo daacish oo ay walba iyagu nolol noolaa dhibna ku hayay dadka. waxaan rabnaa inaan u sheegno cadowga iyaga mid fartiin aan u dirno. fartiintaasna waxaa weeye shacabka reer Puntland iyagoo wada jira ayay wajahayaan caqabad kasta oo ku soo aada. waana isaga filan yihiin cadowga isbahaystay. markaan isbahaystay aan leeyahayna waa dhab weeye. xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya labada cadow. kan dariskeena ah oo daandaansiga noogu yimid iyo kii awalba dhibta nagu hayay shabaab. way muuqataa iskama dhacdo in shabaab iyo daacish dalka qaarna ay dhib ku hayaan oo ay shideeyaan maalin walba, qaarna aysan xagtin aysan gaarsiin, aysan wax dhiba aysan u geysan. waa garan kartaan caqliga saliimka ayaa noo sheegaya. waxaa rabaa marka waayaha dambe dhibta shabaabka iyo daacishtu ay ku hayeen amniga Puntland way soo badanaysay, way soo taraysay. laakiin mar walbaaba ciidamada Puntland iyo shacabkooda wada jira ayaa wajahaya dhibta iyada ah. waxaan rabnaa marka shacabka inaan u sheegno inay ku kalsoonaadaan in ay dadka iyo dowladda Puntland iyagoo wada jiraay ay ku filan yihiin inay wajahaan dhibaatada iyada ah. laakiin hal baan ka rabaa sida waayahan dambe dhacaysay inay shabaab iyo daacish ay taageergareeyaan dadka birmageydada ah, masaakiinta, ganacsatada. waayahan dambe oo dhibaateynayeen ugu dambeysay dilka ay u geysteen gudoomiye ku-xigeenkii Golis. waxaa weeye maamaa waxay odhanaysaa waxa ugu daran aad ka baqdaa waa baqdin laftigeeda. macnaha waxaa weeye markii ayna gasho inaanu ka cabsano cadowga, cadow markaasu ka adkaanaya. marka waxaan rabnaa in aanan dhag u jarasiin baadda iyo dhibta iyo shidada ay waayahan dambe dadka ay ku hayeen. waxaan rajeynaynaa marka in aad waan ka adkaanaynaa. waqtigoodiina waa gabaabsi runtii oo waxaa moodaa inay ay sii dhammaanayaan, dhibtooda ay sii dhammaanayso. markaas ay wiiqmaan oo dhibaatoobaan ayay waxay isku dayaan marka inay shaqaaqooyin iyo shidooyin cusub ay geystaan. taa weeye waxaa jirta maahane wax dhib oo hadda soo kordhay oo zaid ay samayn karaan ma jirto. waxaan rabnaa marka inaan ku booriyo dadka inay iska kaashadaan amniga, in ay la shaqeeyaan ciidamada, in ay ogaadaan in wiilasha yaryarka ah la soo khalday wixii aanu soo hanuunin karno oo aanu caqli celin karno aanu caqli celino. wixii kale oo yacni waan toogi waayana inaanu gacan bir iskaga qabanno inagoo iskaashanayno dhammaanteen shacab iyo dowlad intaba. khudbadaydii in maanta intaasaan kusoo koobayaa maadaama guul iyo khayr baan idin rajeynayaa. waxaan idin rajeynayaa amni iyo ammaan inaad ku noolaataan. waxaan rajeynayaa inaad ciidda kale ku gaartaan nabadgelyo iyo ammaan insha Allah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.